السلام عليكم. good night aad baan salaamayaa meel walba caalamka adduunka wada joogtaan asxaabta halkan xogaa topic-aan ka hadlaya caawa aan jeclaystay walaalaha Soomaalida waliba I have experience for this and wadankan America waa wadan aad u weyn waa content state dadna u baahan laakiin xogaa odayga Trump baa qasayo 100 saxiix mustaba daarinay marka dad badan baa wulsan you forget that insha Allah ilaahay ma taqaana wax toos ku qaban laakiin waxyaalaha Soomaalida marka u baahan waa only the colleges qofku waa inuu college soo xareeya soo America u yimaado nacam waxyaalaha hindidu ay ka faa'iideysteen millions hindida ay wadanka ku yimaadaan waa colleges aniga for example waxa dhigtaa Ghana University aan dhigtaa waxa ugu badan ee dhigta ee masha Allah masters PhD waa hindi weeyaan chance ku yimaadana mid baa helaya 5,000 6,000 bangiga ku shumanaya qof walaalkii qanacsada booking money ka dhigay bangiga kadib wuxuu lacagana state United America soo galaya USA kadib ninka uu shaqaysanaya half time uu shaqaysanaya half time laxbu baranaya after 5 sano he gets citizen so Soomaalida maxaa uu tala galay inay soo tahriibaan chance badan oo ayaa wadanka jira maxay u sameeyay am xogaa waxa la rabaa qofka inuu information aan kala America ku nool arday badan Malaysia yimaada Indonesia yimaada waxa ka fiican oo ka horumarsan oo waxbarashada high level education ka America wadugta lambar weyn ee adduunka waxbarashadeedu ma hadheeldheer marka qofka ka imanaya Hargeysa ama Muqdisho ama Boram ka imanaya chance wax uga fiican America awna waxbartana awna shaqaystaan hadda Oromada bilaabay oo qaab dhowr badan oo Ethiopian oo Oromo ah inkastoo billions hindidu ay waxbarashada ku yimaadaan marka walaalkeena Soomaalida qofkii caawinimo waan ka caawinayna please don't forget inaad waxbarashada meelaha Asia inta tagi lahayd oo levelkeegu hooseeyo aan ma taqaana academy high level helahay wada adduunka America ciyaar ma waa adduunka dawladaha ugu awood weyn hada caalamka la joogo military haday noqoto diyaarad haday noqoto wax kasta haday noqoto America adduunka ugu horeysa soo moog marka please Soomaalida waxa leeyahay wadada waxbarto Soomaalidu aad u fiican waxbarasho ka faa'iideysta admissionka wala naga caawinaya soo diyaariya inta meelaha waqtiina kullu min lahaydeen you come to United States I want to welcome to my brother Ismail. You want me to say something? Yes. Okay. Yes, we make dua that President Trump chooses to be merciful to the immigration policies that Biden put in place, which were good. And we make dua that this opportunity of the study visa is available to everyone. Which college you study? I study at the community college. Okay. And yeah, pretty much if you get the study visa, then you can get the work visa. And you get the scholarship half. Yes. Yeah, and you can get citizenship like Mustafa. When you get the college, he's close. then half. You get the scholarship. Scholarship by Halisa.